Shuruudaha dalku galka Netherland. Ma u baahan tahay macluumaad ku saabsan fiisaha dalku galka ama oggolaanshaha ee dalka Holland? Soo dhowow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. Halkan aad naga dawanayso waa deeqsame. Nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. Mahadsanid. Su'aalaha ugu badan ee la isoo weydiiyo: sideen uga dalban karaa fiisada dalka Holland ama Midowga Yurub anigoo jooga dhulka Soomaalida oo haystana baasaboor Soomaali? Waad dalban kartaa adigoo haysta baasaboor Soomaali. Ha ka warwarin, keliya waxaad u baahan tahay inaad fahanto nidaamka dalbashada fiisayaasha. Waddan caan ku ah kafateeriyada dhinaca kanaalka ah, qaab dhismeedka mustaqbalka iyo moodka isku xidha, farqiga u dhexeeya midhaha canabka ah iyo warshadaha soo jiidashada ee casriga ah. Booqashada Netherland xaqiiqdii waa u qalantaa, inkasta oo ay jiraan shuruudaha fiisaha Netherland. Laakiin ha ka welwelin habka codsiga fiisaha, maadaama maqaalkani uu kugu hagi karo tallaabo kasta oo aad uga baahan tahay buuxinta foomka codsiga fiisaha si aad ugu guulaysato waraysiga fiisaha. Maadaama aad mar hore go'aansatay inaad booqato Netherland, waxaa ku xiga ee aad u baahan tahay inaad go'aansato waxay ku saabsan tahay ujeeddada iyo muddada aad joogtid waddankaas. Waxaa jira si guud 2 nooc oo fiisayaal ah oo aad u baahan tahay inaad wax ka ogaato: fiisaha muddada gaaban ee aan ka badnayn 9 maalmood dibadda, iyo fiisada muddada dheer. Haddii aad qorshaynayso inaad joogtid in ka badan 9 maalmood marka laga reebo oggolaanshaha joogitaanka, inta badan shuruudaha fiisaha Netherland waa isku mid. Fiisaha wakhtiga dhow iyo midka dheer labadaba marka waa kuwan wax kasta oo aad u baahan doonto markaad codsanayso fiisaha Netherland. Shuruudaha fiisaha Netherland. Liiska dokumentiyada qasabka ah si aad u hesho fiisada Schengen ee Netherland. Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa dooro nooca fiisaha, maadaama ay jiraan fursado badan sida fiisaha dalxiiska, fiisada ganacsiga, fiisada ardayga iyo fiisada shaqada. Waxaa lagama maarmaan ah inaad si gaar ah u sheegto ujeeddada socdaalkaaga markaad doorato qaybta fiisaha. Marka xigta, waxaad u baahan tahay inaad soo ururiso dhammaan shuruudaha fiisaha Netherland ee lagama maarmaanka ah si aad ugu gudbiso safaaradda. Halkan waxaa ah liiska dokumentiyada qasabka ah oo aadan ka maqnaan karin. 1. Foomka dalbashada fiisaha ee sida saxda ah loo buuxiyey. Foomka dalku galka fiisaha Netherland waxaa lagu buuxin karaa si elektaroonig ah, ama waxaa lagu heli karaa foomka codsiga oo daabacan oo ku buuxi qalin khad buluug ah. Foomka waxaa laga soo dejisan karaa webka rasmiga ah ee Netherland. Waa kan isku xidhka foomka codsiga. Marka la buuxiyo, waxaad u baahan tahay inaad daabacdo oo aad si sax ah u saxido foomka. 2. Waxaa la rabaa 2 sawir oo baasaboor ah. Waa in aad soo bandhigtaa 2 sawir oo baasaboor ah oo wejigaaga oo isla had ah, maadaama sawirada lagu dhejinayo codsiga. Warqadda waa in ay buuxisaa dhammaan shuruudaha sawirka fiisaha iyo qeexitaanka. 3. Baasaboor sax ah waa dukumeenti muhiim ah oo ka mid ah shuruudaha fiisaha Netherland. Hubi inay shaqaynayso ugu yaraan ilaa 3 bilood kadib taariikhda soo noqoshada. Waa in ay jiraan ugu yaraan 2 bog oo bannaan ah imaatinka iyo bixista si loogu dhuufto. Waxaa kale oo laga yaabaa in lagu weydiiyo inaad keento koobiyada dhammaan baasabooradii hore haddii ay khusayso. 4. Boos sii qabsiga duulimaadka fiisaha. Waxaad u baahan tahay inaad soo saarto tigidhka duulimaadka soo noqoshada si aad u hubiso inaad ku laabanayso waddankaagii hooyo. Uma baahnid inaad iibsato tigidh soo laabasho ka hor intaanad helin fiisaha. Taa beddelkeeda, waxaad keliya ka heli kartaa qorshaha duulimaadka wakaaladaada socdaalka. Ogsoonow inay leedahay taariikhaha iyo lambarada duulimaadka ee qeexaya soo gelida iyo ka bixista Netherland. 5. Warqad faahfaahin ah oo lagu xusayo tafaasiisha muhiimka ah ee safarkaaga ayaa ka mid ah shuruudaha fiisaha Netherland ee qasabka ah. Waa inay ku jirtaa ujeeddada booqashadaada, meelaha aad booqan doonto, hoygaaga, iyo sidoo kale habka gaadiidka. Haddii ay dhacdo safar shaqo, waxaad u baahan tahay inaad keento warqadda martiqaadka ee shirkadda Netherland oo ay ku qoran tahay cinwaankeeda iyo faahfaahinta xiriirka si ay u noqoto caddaynta hoygaaga. 6. Qabashada hoteelka aad degayso. Waxaad u baahan tahay inaad bixiso rasiidhada boos celinta hoteelka si aad u caddayso inaad samaysay dhammaan qabanqaabada lagama maarmaanka u ah joogitaankaaga Netherland. Waxa kale oo ay noqon kartaa warqad martiqaad ah oo leh ciwaanka iyo lambarka taleefanka saaxiib, qaraabo ama xitaa kafaal qaade kugu martiqaadaya inaad joogtid hoygooda inta lagu jiro safarkaga Holland.
Shuruudaha fiisaha ee Holland qodobo dheeraad ah. Xataa marka aad dhammaan shahaadooyinkan diyaarsan tahay, waxaa jira fursado uu sarkaalkaaga laanta socdaalka ku weydiin karo qaar ka mid ah dukumentiyada taageeraya. Markaa si looga hortago dhibaato kasta oo daqiiqadda ugu dambaysa ah, waxaad diyaar u noqon kartaa dukumentiyadan dheeraadka ah oo ay la socdaan kuwa qasabka ah. Mid ka mid ah dukumentiga taageerada ugu badan ee sida joogtada ah loo weydiiyo waa caddaynta heerkaaga madaniga ah. Waxaad bixin kartaa shahaadadaada nikaaxa, kaarka raashinka, shahaado dhimashada saygaada haddii aad xaas tahay. Haddii aanad guursanin, shahaadada dhalashadaadu waa inay kugu filnaataa. Caddaynta ciwaanka ee degenaanshiyahaaga joogtada ah iyo sidoo kale warqadda diidmo la'aan ayaa aad muhiim u ah si ay u muujiso in aad ku leedahay mas'uuliyado muhiim ah dalkaagii hooyo iyo in aad dib ugu soo laabanayso gurigaaga hooyo safarka kadib. Haddii aad tahay shaqaale mushahar qaata, warqad caddayn ah oo ka timid loo shaqeeyaha ayaa loo baahan yahay. Haddii aad tahay arday, waxaad nooc ka heli kartaa dugsigaaga ama jaamacaddaada. Caddaynta habmaaliyadeed oo ku filan ayaa sidoo kale muhiim u ah dowladda Nederland si ay u xaqiijiso inaad bixin karto dhammaan qarashyada inta aad Nederland joogto. Caddaymaha la aqbali karo ee muujinaya habkaaga masruufka waxaa ka mid ah caddaynta bangigaaga 3 bilood ee la soo dhaafay, si sax ah u saxiixay oo laga shaabadeeyey bangigaaga, iyo sidoo kale shahaadooyinka soo celinta canshuurta dakhliga 2 sano ee la soo dhaafay. Inkastoo dadka dhulka Soomaalida jooga canshuur celinta ayna haysan, laakiin warqad been ah ayaad samaysan karaan. Haddii aad arday tahay, caddaynta isdiiwaangelinta waxbarashada dugsi sare ama jaamacad iyo shahaadooyinka dhammaan koorsooyinka la dhammeeyey ama ka qaybgalay waa in lagu bixiyaa dukumenti kale. Codsashada fiisaha arrimo caafimaad waxaa lagama maarmaan ah inaad bixiso warbixin caafimaad oo kugu filan oo ka timid isbitaal ka diiwaan gashan dalkaaga hooyo. Marka aad soo ururiso dhammaan dukumentiyadan, waxaad codsigaaga ka xarayn kartaa safaaradda qunsuliyadda Nederland ama xarunta codsiga fiisaha Nederland ee dalkaaga hooyo ama dalka kugu dhow ee ay ku talo safaaradda Holland. Waxaad dukumentiyadan oo dhan ku dhex shubi kartaa baqshad dheer oo bunni ah oo magacaaga iyo lambarkaaga lagala xidhiidhi karo dhinaca bidix ee sare kaga qoran yahay. Ka hor intaadan ku xirin baqshada waraqaha, fiiri dhammaan shuruudaha fiisaha Nederland. Ha ilaawin inaad dib u hubiso inaad bixisay dhammaan dukumentiyada lagama maarmaanka ah. Haddii aad ku guuldaraysato inaad bixiso mid ka mid ah shuruudaha fiisaha Nederland ee muhiimka ah, waxay ku dhammaan kartaa in fiisadaada la diido ama dib loo dhigo. Waxaan fahamsanahay in waraaqaha fiisaha ay yihiin shaki la'aan, caajis iyo daal, laakiin hagida saxda ah ayaa ah in dhammaan shuruudaha in aad gudbiso waxaa laga rabo oo dhan habka codsiga fiisaha iyada oo aan wax dhib ah lahayn. Taasi waa sababta haddii aad u baahan tahay nooc kasta oo gargaar ah shuruudaha fiisaha Nederland sida helitaanka sii qabsashada hodheelka ama boos qabsiga duulimaadka, waxaad si fudud nala soo xidhiidhi kartaa halkan Deeqsame iyo weliba anigoo ah Axmed Deeqasan. Waxaan xaqiiqdii kugu hagi karnaa tallaabo kasta oo aad ku dalbanayso fiisadaada Nederland. Ma qorshaynaysaa safar Yurub ah dhowaan? Habka codsiga oo dhan waan ka caawinaynaa meel kasto aad joogto. Waad dalban kartaa adigoo haysta baasaboor Soomaali. Ha ka warwarin keliya waxaad u baahan tahay inaad fahanto nidaamka dalbashada fiisayaasha. Muuqaalka xiga waxaan idinku soo bandhigayaa sida aad u xareyn lahayd oo aad uga dalban kartid fiisaha dalku galka Midowga Yurub iyo sida foomka loo buuxiyo. Waad ku mahadsan tahay haddii aad soo gaatay halkan. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena, fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeennana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. Waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.